السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maantana waxaan ka sheekeyn doonaa qisadii calaawudiin wuxuu ahaa wiil agoon ah wuxuuna la noolaa hooyadiis waxayna ku noolaayeen danyari. waxaa dhacday calaawudiin maalin asagoo magaalada iska socdo duurka wareegaya ayaa waxaa la kulmay nin oday ah. ninkii ayaa salaamay, waxa uu yidhaahday anigu waxaan ahay aabbaha saaxiibkiisa, waana ku jeclahay, waxaan ku siinayaa jabkan dahabka ah. waxaan doonayaa in aad ii shaqaysid shaqo yar ii qabatid maadaama aan adiga aabbaha saaxiibka ahay. calaawudiinna lacagtii markuu arkay, nacam waan kuu qabanayaa, waa lacag fiican, waa inay anfacaysaa. calaawudiin odaygii waxa uu ka codsaday, wuxuu yidhi meeshaas god ayaa ku yaala, aniga ma geli karo, adiga yar waxaan rabaa inaad godkaas geshid oo wax iga soo bixisid. calaawudiinna waa uu ka yeelay. meeshii dhagax ayaa ku wadnaa, dhagaxii ayay riixiyeen, mise waxaa ka soo baxay godka waxa uu lahaa jaranjaro. calaawudiin jaranjaradii ayuu hoos ugu sii degay maadaama isagoo yaraa odayga meesha ma uu geli karin. calaawudiin laakiin godkii waxa uu ku arkay wax uusan filaynin oo weligiis uusa arag, dahab tiro badan oo aad iyo aad u badan. laakiin waxaanu dahab ah oo meeshan yaalo. ninka waxa uu codsanayay jalmad maar ah oo meesha taalla oon qurux badnayn, oo wuxuu ku hayay jalmadayda ii soo bixi, jalmada ii soo bixi. calaawudiin waa u yaabay, waxaanu dahab ay meesha yaallo, maxaa uu jalmada oo u sheegayaa? soo la yaaban calaawudiin ayuu jalmadii u soo qaaday. calaawudiin wuxuu dhahaa alma dahab soo qaadataa, laakiin ninka aad iyo aad ayuu qeylinayay oo wuxuu dhahay ii keen jalmadayda, la soo dhaqsa jalmadayda, haddii kale albaabka ayaan kugu xirayaa, ayaa uu ninkii ku dhawaaqay. calaawudiin arrintii ayuu ka naxay oo ninkaani waa maxay sababtiisa? markaas wuxuu yidhaahday anoo godka kasoo dhammaanin wax aan kuu qabanayo ma lahan. ninkiina waxa uu yidhaahday adiga naftaada halligtay, waana kugu oodayaa albaabka. calaawudiin waxaa rabtid sameey ayuu ku yidhaahday ninkii isla markiina godkii ayuu calaawudiin ku daboolay oo dhagaxii ayuu ku aadiyey. intuu dhagax la xarbinayay ayaa ninkii waxaa kasoo dhacay faraantii, wuxuuna kusoo ag dhacay calaawudiin agtiisii. calaawudiin oo naxsan ayaa faraantii soo qaaday ninka kasoo dhacay, gacanta ayuu gashaday. isla markiiba godkii hilaaca ka dhex bilowday, cirfiid aad iyo aad u weyna meeshii ayuu soo istaagay. wuxuu yidhaahday walaalow maxaan kuu qabtaa? adiga ayaa i wacday maadaama aad faraantigan haysid, laakiin aniga waxaan kuu sheegayaa 3 wax bas ayaad iga codsan kartaa. 3daas wax aad rabtidna waan kuu samaynayaa. calaawudiin oo baashi kor u haya wuxuu yidhaahday waayahe gurigayga ma ii geyn kartaa? haa ayuu ku yidhaahday. isla markiina waxa uu ku celshay gurigii hooyadii oo calaawudiin barnaanka u ogeed. markii gurigu arta aad iyo u naxday, calaawudiin ayaa u imaatay se wax u jiraan. asagana waxa uu sheekeeyey taariikhdii asaga iyo odaygii soo dhex maray iyo godkii u cararay, iyo wuxuu yidhaahday bahashan duug ah ayuu u qeylinayay. calaawudiin ayaa wuxuu damcay bahasha baalbusta ka jaf. isla markiina bahasha afkeed qiic ayaa ka soo baxay, cirfiid weyn ayaa meeshii soo istaagay oo waxa uu yidhaahday min fadlikum, maxaa idiin qabtaa? iga codsanaysiin? waxaad iga soo bixiseen xabsi in badan aan ku jiray, waad mahadsan tahay. wax alla waxaa rabtidna waan kuu samaynayaa, adiga ayaan kuu khidmaynayaa, maxaa kuu qabta? calaawudiin hooyadiis aad iyo aad u la yaaban ayaa waxa uu yidhaahday maxaa idiin qabtaa ood codsanaysid? calaawudiin oo la yaaba ninkii ayaa waxa uu yidhaahday hadda muhiimadeen u weyn waxa weeye gaajo ayaan dareemaynaa, raashin ah cunno ma heli karnaa? nacam ayuu yidhaahday. isla markii miis ayaa u fisamay, wax kasta oo qudrad ah oo macaan oo la jecel yahayna meeshii ayay soo fuuleen. calaawudiin iyo hooyadiisna bahashii ayay cuneen. guriga naga qurxiyay dhan guriga waa u qurxiyey, waxay ku noolaadeen nolol aad iyo aad u fiican. waxaa kasoo wareegtay in muddo ah ayaa hawshaas calaawudiin iyo hooyadiis u socotay. maalinkii dambe calaawudiin oo suuq u socdo ayaa waxa uu arkay
yaasmiin amiiratu yaasmiin oo gabadha boqorka ahayd. Calaawudiin oo fiirinayayna gabadhii aad iyo aad ayuu u jeclaaday. waxa uuna hooyadii u sheegay inuu gabadha boqorka arkay uuna jeclaaday. hooyadii oo qosashay ayaa tiraahday waa lagu doonayaa. waxay u qaaday sanduuq dahab ah. boqorkii hadiid ahaan ugu qaaday oo jinnigii u keenay. kadibna waxay u tagtay boqorka hadiidan tirada badan la yaaban ayaa weydiiyey waxa ay doonaysay. waxa ay ku jawaabtay waxaan rabay gabadhaada in aa wiilkayga ku dartid ayaan doonayay. boqorkii ayaa yidhaahday masahalkaas ayaan gabadhayda idinku siinayaa. haddii uu doonayo gabadhayda inuu guursado waa in uu keenaa 40 addoon oo midkiiba sanduuqad dahab ah qaalisan ay u soo wareejiyo. habartii waxay tiraahday nacam. waxayna u soo noqotay calaawudiin waxayna u sheegtay wixii ay kala soo kulantay boqorkii iyo xujadii oo ku xujeeyey. calaawudiinna waxa uu sameeyey saaxiibkiis ayuu u wacay. asagana waa uu soo xaadiray. waxa uuna u sheegay wixii lagu soo xujeeyey inuu u baahan yahay 40 nin oo addoomo ah oo xambaarsan intaas oo sanduuqoo dahaba. 40 ciidanna ay hogaaminayaan. cirfidkiina waxa uu yidhaahday sabcan wadaacan. isla markiina hooshii waa u fuliyey. kadibna alaabtii sidii loo sii waday waxaa lagu wareejiyey boqorkii. boqorkii aad iyo aad ayuu ula yaabay ciidankan iyo addoomankan iyo xoolo dahabkan. ninkan taajirka saan u ah oo la aqoonin oo magaalada nala joogo oo wiilka dhallinyarada ah muxuu ahaa. boqorkii ayaa wuxuu yidhaahday inuu u jeedaa xaaladaada laakiin gabadhayda qasri ayay deganaan jirtay. guri qasriya ma u samayn kartaa. calaawudiinna saaxiibkiis ayuu u wacay. isla markiina guri qasri ah oo weyn ayaa loo dhisay. boqorkiina waa la soo waday oo waxaa la yidhaahday aniga gurigan ayaan ku noolahay qasriga. boqorkii aad iyo aad ula yaaban ayaa oggolaaday calaawudiin in uu ku daro gabadhiisii. kadibna aroos weyn ayaa loo dhigay. arooskaas oo socday 40 maalin dabaaldegiisii la waday. calaawudiin iyo hooyadiis iyo amiiradii gurigu ay soo degeen waxayna ku noolaayeen nolol aad iyo aad u cajaa'ib ah. laakiin calaawudiin uma uusan sheegin jalmadka meesha taallo oo duug ah waxay tahay iyo waxa uu u hayo. laakiin nin oday ah oo dhahayo jalmada dhammaatay oo maaraya hayo. ileen wuxuu ahaa ninkii oo ogaaday jalmadkii in meesha lagala baxay oo raadinayay. yaa hayo gabadhiina waxay tiraahday anaga ayaa gurigeena mid taallaa. lacag fiican ayuu u sheegay. isla markiiba waxay la oroday jalmadkii oo waxay u geysay odaygii. wuxuu dhahay jalmadii cusub oo fiican ayuu ugu bedelay. jalmadiina asaga ayaa qaatay. wuxuuna ogaaday in ay tahay jalmadii uu raadinayay. waa uu salaaxay. kadibna ninkii ayaa u soo baxay. waxa uu yidhaahday waxaan doonayaa in ay qaadid gabadhana hiisii qaadid waxaana baabi'isid. kadib calaawudiin ayaa imaaday. wuxuu imaaday meeshii oo bannaan qasrigii. aad iyo aad ayuu u naxay. gurigiisii hooyadiis ayuu tegay. wax uu sameeyo ayuu kari waayey. faraantigii ayuu soo bixiyey. farta ayuu gashaday. wuxuu u wacay saaxiibkiisna waxau yidhaahday hal arrin ayaa kuu sii baxday. haddana arrintii labaad ayay ka codsanaysaa. ogow hal xaballe ku dhiman tan markaan kuu fuliyo. waxa uu ku yidhaahday waxaan doonayaa in aa i qaadid oo i geysid meeshaas ninkana aa hordaysiisid ayaan doonayaa. kadibna wuxuu isku dhagayay derbi. ninkiina markii labaad ayuu waxa u wacay saaxiibkiisii. waxa uu yidhaahday waxaan doonayaa in uu ninkaas seexdo. cirfiidkiina waxa uu ku yidhaahday waad og tahay xabaddii u dambaysay ayaa kuu dhiman. wax dambe uun kuu fulin doono ma jirto haddaba ogow. waxa uu yidhaahday waxaan doonayaa ninkaas inaa iga seexisid
dabcan wadaacan ayuu dhahay. Ninkiina waa Calaawudiin waxa u imaaday saaxiibtiis, kadibna wuxuu u sheekeeyey xaaladii. Jalmadkiina waa uu baray waxa ay tahay. Waxa uu soo qaaday jalmadkii oo tusay saaxiibtiis iyo sida ay u shaqayso iyo hawshii ay ku taajireen iyo noloshii ay ku jireen. Kadib haddii uu salaaxay waxaa soo baxay cifriidkiina waxa uu baray saaxiibtiisii, waxauna u sheegay inay tan saaxiibtiis tahay. Cifriidkii wuxuu yidhaahday maxaad iga codsanaysaa? Wuxuu yidhaahday waxaan kaa codsanayaa ninkan daalimka ah in aad naga fogeysid ayaan kaa codsanayaa, meel dheer aad geysid uusan dib damba nagu soo noqonaynin. Cifriidkiina wuxuu yidhi sabcan wadaacan, meel fog oo saxaraha ayuu ka tuuray. howlahoodii iyo gurigoodii iyo qasrigoodii iyo noloshoodiina waa u soo celiyey. Calaawudiin iyo hooyadiisna way isku soo noqdeen. Hooyadii aad iyo aad ayay u faraxday. Gabadhii boqoraddana waxay ogaatay qiimaha ay ku fadhiso jalmadkaas, sababtoo ah wixii markaas ka dambeeyo waxay noqonaysaa in ay waardiyeyso. Halkaas ayay qisadeenii noogu dhammaatay. Waadna ku mahadsan tahay sida aad noo daawanaysay.